علي كوري سوكو دون تجعلك سوكو كون كون انكو ديليو اشكي لابتو قليو وي ودا ويسيتا فلا فلا I just wanna go inside دلق دلق يرتوا. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Please subscribe to Hal Abuur Somali channel. Fartuun waxay ka baaraysaa online-ka kombiyuutarka Amazon laptop fiican ay iibsato. Markii dambe waxay aragtay laptop fiican oo qanciyay. Kadib Fartuun waxay istiri laptopkan aad u qiimo jaban yahay, waana laptop fiican. Masha Allah, markaas waxay tiri waa inaa iibsado. Isla markii Fartuun ninka email u qortay, ninkii gaday kombiyuutarka waxay ku tiri kombiyuutarka xaaladiisa ka waran ma fiican yahay. Haddaba si loo qiyaanin Fartuun gabar aqli badan ay ahayd. Ninkii kombiyuutarka gaday wuxuu ku yiri ciwaankaada ii sheeg iyo magacaada oo dhammaystiran. Fartuunna waxay tiri ani ciwaankayga ma siiyo strangers, macnaha dad aanu aqoonin ciwaankayga ma siiyo. Fartuun oo jaamacadda joogta ayaa nin u imaaday. Ninkii wuxuu ku yiri Fartuun ma tahay? Haa, aniga Fartuun la yiraahdaa, waxaan ku wadaa laptopkii. Wow, cajiib, ma arki karaa walaal laptopka? Aad u mahadsan tahay. Kombiyuutarkii iska baartay Fartuun, wax walbana kombiyuutarka waa u dhammaystirnaayeen. Lacag $600 dhiibtay. Ninkan wuxuu ku yiri aad u mahadsan tahay, maalin wanaagsan haddee mar kale aan kulmeynaa. Okay, bye. Wax walba way fiicnaayeen ilaa waxaan dhacay ma ahane. Fartuun oo laptopkeeda baarbaaraysa si kadisa waxay aragtay sawirro ay ku qoran yihiin jaceylkeygii, gacalisadeydii. way yaabtay marka Fartuun waxay istiri ninkii ma waxaan ka dambeeyay ninkii laptopka ka gaday waa nin beenlow oo khiyaanoolow ah. si u baaraysa waxay ogaatay Fartuun sawiradeeda inay yihiin sawiradan laga qaaday. aad u naxday, wayna cabsatay. boorsadeedii qaadatay, waxay go'aansatay inay soo baxdo. waxay ogaatay in la soo dawagalayo Fartuun. taleefankeedii isku mashquulisay, waxaana arkeen inay iska dhigtay. wuxuuna ahaa nin jaakad madow xiran. uu soo dawagalayo, uu soo daba socday. Fartuunna wadadeedii u leexatay soo ninka u soo raacin. basiina raacday. markii baska raacday xaafadii imaaday, walaalkeedii u wacday oo la yiraahdo Cabdiweliyow. kadib walaalkeed wax walba ku dhacay u sheegtay. waxay ku tiri waxaa arkay nin jaakad madow oo la arkeenin. markaasaa walaalkeed wuxuu ku yiri isdaji abaayo, ninkan maxaa ka qaldan? walaalkeedna wuxuu ku takhasusay kombiyuutarka sida loo baaro. haddaba asagoo baarayo, markii dambena wuxuu isku dayay inuu furo kombiyuutarka. 1 saac kadib wuu qeyliyay walaalkeed. isla markii Fartuun way soo booday, qolkeedii ka soo carartay. waxay ugu imaaday walaalkeed oo laptopka ag fadhiyo oo naxsan. Fartuunna argagax badan ay qaaday. markii dambe waxay aragtay bahal oo loogu soo xiray kombiyuutarkeeda, wuxuuna ahaa tracker, wax raad raac ah. waxay soo xasuusatay laptopkii qiimaha yaraa looga iibiyay. ninkanna wuxuu sameeyay laptopka wuxuu ku xiray raad raac si uu u qiyaano Fartuun soo u dhaco. nin tuugu ahaa ninkan runtii. haddaba Fartuun waxay ka baartay ninkii Facebook meel walba ay kala xiriiri jirtay. markii dambe 911 booliisi wacday. ninkiina wuu lumay. nin tuugu ahaa, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. fadlan like noo saara, aadaan u mahadsantihiin. haddaba sheekadan waxay qusaysaa